maadaama ardayda shaqo raadiska waxaan helay fursad tababar ka helay dalada Soonyo taasoo aan u arkay tababar aad muhiim ugu ahaa bulsho ahaan iyo ka arday ahaanba markaan leeyahay muhiim bay tahay markaan intaan dhiganay waxbarashada ama jaamacadda ama iskuulka ahaato key pointski shaqooyinka lagu raadinayay lama barin maadaama la barin waxaan tababarkani uu noo fududeeyay inaan helno key pointski ugu muhiimsanaa ee meel kasto aan shaqo ka raadinayno aan ku heli kar lahayn waxaan maanta halkan ka qaatay training ay bixinayso Soonyo oo title-kiisu yahay job readiness maanta markaan training kan qaatay waxaan ogaaday 3 qodob oo aad iyo aad noloshayda wax badan uga bedelay inaan ogaado xirfadda shaqo ee aan leeyahay iyo shaqada aan u qalmo marka labaad inaan ogaado structure-ka dhabta ee CV-ga leeyahay iyo inaan CV-gayga qanaacad badan ku qabo maanta haddaan xareynayo qodobka saddexaad waa inaan interview-ga fahansanahay ka hor interview-ga intaan galin maxaa la iga baahan yahay iyo kadib markaan galo interview-ga maxaan u baahanahay inaan sameeyo kalsooni badanna waan haystaa markaan waxaan arkaa programkan ay daladan maxay Soonyo wado program aad u muhiim ah oo maxay hata dhammaan loo baahan yahay dhalinyarta bulshada iyo xataa imanka dadkii shaqaalaysiinaya waxba u baahan inay shaqaalahoodu ay shaqo xirfad leeyihiin oo wixii fahmi karayaan waxay mahad u sugnaatay Allah subhanahu wa ta'ala na keenay oo na soo gaarsiiyay caafimaadkana siiyay noona sahlay inaan ka qayb noqono training-kan marka labaad waxaan u mahadnaqayaa dalada Soonyo iyo Save Children oo iska kaashaday mashruucan tababarka dhalinyarta iyo si shaqo ku heli lahaayeen